بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله maanta waxaan bilaabaynaa chapter 15 waana jabtarada ugu muhiimsan maadada international businesska. Chapterkan wuxuu ka hadlaa wax la dhaho marketing internationally. How can you do marketing internationally? semesterkii hore waxaan soo qaadanay sida loo sameeyo marketingka marka la joogo wax la dhaho how can you do marketing marka aad joogtid sida caadiga ah generally ayaan soo aragnay. hadda laakiin waxaan arkaynaa marka aad rabtid marketing inaad samaysid international. So what is the difference? maxaa difference u dhexeeya? sida caadiga ah marketing marka aad joogtid international ama marka aad joogtid international labadaba waa same. local international labadaba same laakiin waxyaalo kala dheeri. hadda anaka Soomaali hadaan nahay badanaa ma aragnabo business aan anaka leenahay oo dibadda aado marka laga reebo hay'ada anaka leenahay oo Soomaalida caan ku yihiin oo badanaa business ka sameeya dibadda jirto. yaa sheegi karo business anaka leenahay Somali original business that have worldwide agencies and branches and networks. My ma. Very good. Money transfer. The Somali money transfer, or call it Hawala, is the most local business that went abroad. معسكر عني international business كأنه يهاي. What is international business? معسكر عني international business إنه يهاي any business transactions that happen beyond the local borders. حدودها local كا. wax alla wixii ka baxsan maxaa loo yaqaanaa isku raacnay muxuu yahay international business. marka marketing ka for example ama xawaalada habshiil ama taaj ama amal ama tawakkal ama waxyaalahaas oo kale markii business branch ka furtaan Kenya waa international business. waa business Soomaali laga furay magaalada Muqdisho laga furay xaggana branch ka jirta Soomaa. marka aragna marka the marketing mix waxa la dhahaa marketing mix waa soo aragteen magacyo badan oo leeyahay ereygan marketing mix maxaa kamid ah 4B waa la dhahaa market tactics waa la dhahaa waa qaybta golaha fulinta suuqgeynta waxay leedahay laba qaybood qayb oo ah istiraatiijiyada guud iyo qayb oo ah qaybta hoose. tan waxa waaye qaybta istiraatiijiyada guud sida loo sameeyo what to sell and how to sell. maxaa laga wadaa marketing mix? A set of strategic decisions made in areas of product promotion, pricing, distribution in order to satisfy the needs and desire of customers in a target market. fiir dhor waxa ku jiro waxaa lagu dhahay a set of strategic decisions go'aamadii qorshihii la gaaray maadaama isku raacnay in a marketing first wax ugu horeeya aad sameynaysid maxaa waaye marketing wax ugu horeeya aad sameynaysid waxaa waaye in aad dejisid qorshahaas aad dejisid maxaad ka faa'iideen? qorshahaas aad dejisid waxaa ka faa'iideen waa ku dhaqaaqeen. hadda qaybta maxaa waaye marketing mix waxay ku dhaqaaqi lahayd waa kala horeeya. marka the first step maxaa waaye strategy and the second step maxaa waaye fulin. salon kala ma dhaho golaha maamulka iyo golaha fulinta the board iyo the CEO, the C level, the C suite, the executive level. A set of strategies made in the areas of product, promotion, price, and distribution. Product waxa ku qarsoon service waa wixii la gadaa wixii laga ganacsanayo. Promotion xayisiintu advertisement the customer communication iyo pricing and distribution in order distribution maxaa loo yaqaanaa waa place meesha aad degi lahayd waa place iyo qaabka u qaybaleed. Why we don't say place? ergaas maxaa distribution loogu bixinaa? maxaa yeelay hadda waxa soo bax caalamka businessyo badan aan lahayn location virtual companies waxa la drop shipping. hadda shirkadaha waaweyn Amazon waxay leedahay baqaaro la dukaan la tagay waa yarta hadday leedahay ana ay nabi seed market laakiin wax badan customer u ahaan Amazon waxaan ka taana Soomaali jooga ka taa Dubai soo dhigaan Dubai dhumayl soo dhigaan. Product strategies total product what the customer buys including maxaa kamid ah physical product brand name accessories after sale service qof markuu wax ka bacdi shirkadda markii la fiirnaa meeqa meel laga fiirshaa
waxyaalo badan oo kala duwan ayaa laga fiirshaa waxyaalo laga fiirinaya maxaa kamid ah wuxuu qofka gadanaya meesha oo joogto hadda shirkadaha dhowr decoration loo sameeyaa the settings hadda waa aragteen xarumaha tarabiyan ku yaal bangiyada lacag badan waxaa lagu bixiyaa in la qurxiyo why waxaa loogu bixiyaa waxay kamid tahay wax la gadaya kamid tahay faa'iido ku saaran tahay magaca shirkadda magaceeda qiimo ay leedahay hadda anaga waa aran muqdisho sanadkan 2024 maxaa ku soo batay in 2024 muqdisho ku soo batay franchise cashirka ma jil aan qaadanayno waa cashirkaas maxaan ka baranay franchise-ka waxaan ku baranay in business kasta oo jiro loo baahan yahay wax la dhaho branches hadda waxaan xaq waddanka imaaday shirkad la dhahayo istiqbaal oo furniture hore waxaa u joogtay Enzo Home dukaan dhar waxaa la furo la dhaho LC Wakik jikin oo cunto ah mar hore waayidii hore hogaam kooxeedka waxaa joogtay DHL Coca-Cola maqaayad cusub hadda la furay la dhaho Babrut mid kale in last 2 years in Mogadishu we have so many branches mostly from Turkish companies and Dubai هذا على بدكان بابروتي يجيك لبضو إمارات كي مادن إنك سو أسأل كود أي تهاي مالك كله منه وحاو ماليشيان منه وحاو مالنا إنه يهاي إنديان إنه كليه لبضو أمرينا سو وإس بدله يسام محامك مقع عائلين أفتر سيل سيل بكي وحلقة تكبعدي باورا قاتل سو حي باوك سو كويا بريقز مقبسوما وحيالا سورن total brand name accessories after sale service warranty is instruction for use company image package physical products type of products industrial products consumer products service promotional strategy qaabka xayisiinta loo sameeyay waa meesha la isku haysto waa ana ka daayanta xayisiinta inuu waxa qaatay TikTok Soomaa awal waxa jiray idaacada hadda idaacad filinkeeda waa dhamaaday boor waa dhamaaday TV waa dhamaaday Facebook waa dhamaaday journal waa dhamaaday maanta waxa la isku soo haray TikTok asal mar soo ka bixi doona TikTok ay maanta the center of attention dibban u baahan xataa lacag badan ka baahan waxa aad duubo soo dhigo page-kaaga bila tawfiiq promote any form of communication between team and its publics marka ereyada ka fiican maxaa lahaa between the company and the customers ereyada loo isticmaalaa advertisement maxaa waa paid non personal presentation adima bixinaysid iyo sales promotion maxaa lahaa what is sales promotion waxaa laga wadaa waa selling aid waa caawin wuxuu ka caawiyaa kaliya wax la gado including display premiums and contests and gifts the distribution strategy the development of distribution strategy is difficult in the home country and even more so internationally where marketing managers must concern themselves with two functions rather than one getting the products to foreign markets, exporting and distribution the products within each foreign market. markaad fiirisid afartan xabo waa business ka dhan meesha ku kooban yahay marka jabtarkan ma badno jabtarkan waa caawin kaliya adiga horba u soo dhigtay international business kan wuxuu ku yahay support u ku yahay muxuu ku yahay support kaliya muxuu ka caawinaa marka afartan markasta xasuusnaa product oo inta ka kooban yahay fiiriya brand name company inta shay ka kooban yahay type of products kulli promotion sidoo kale iyo distribution that's it waa chapter aad u yar runtii waqti badan ka qaadanayo just you can read it and you can understand imtixaankan insha Allah meelahan ku imaanaa ma fahamteen iska soo fiiriye hore u soo dhigateen haddana wuxuu idin yahay ma labaad wuxuu idin yahay